ayaxaasi laba qaybood buu isugu jiraa qayb ka dilaacday Puntland dhexdeeda oo ah kii dayrtii ina dhaafay oo xanta uu ka tagay iyo qayb socota ah oo aan isleenahay wadamada dariska ah ayuu ka yimid dhammaanba gobolada Puntland oo dhan ayaxa dhoofka ku yimid waa gaaray waxaan marka rabnaa dadweynaha in degmooyinka iyo maxaa la yiraahdaa goboladuba ay soo ribood gareeyaan cid kasta oo aragta ayaxa waxaa dhaqso haddii rabbi idmo wasaaraddu ka howlgeli doontaa sidii ay ula tacaali lahayd waxaa imaan doona diyaarado ay soo kireysay wasaaradda iyo wasaaradda federaalka iyo hay'adda FAO waxay buufin doonaan haddii rabbi idmo meelaha lagu sheego barnaamijka isaga ah ayaa wasaaraddu isu taagtay si wax qaban lahayd barnaamijka waxaa garab socda wacyigelin in dadku soo sheegaan meelaha ay xog joogo hadda wasaaraddu waa la socotaa meelaha yahay tiimka iyagu meel walba way og yihiin meesha jooga laakiin waxa rabaa meelo badan oo aan la gaari karin baa jira oo Puntland inay sida ugu dhaqsaha badan u soo sheegaan meelaha laga soo xiriir doonana wax kale noqon doonta gobol walba waxa noo jooga isduwayaashana inay shaqadooda gutaan oo hadda wixii meesha ka jira ka wasaarad ahaan wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbitaalka cimilada isduwayaal baa u jooga gobolada inay soo sheegaan oo kaalintooda ka soo baxaan baa la rabaa marka dhibaatada tabaad waxa la rabaa tacaawunu على بر والتقوى إن لو شقيه وودن كويح هذا كجرا سيدا هذا عرض كورونا أيه وحبس من دامه واسكمي استيواش واحد باين يا تاس كهول كلام قادم كلامات محيي هاي شركة نكسب سيء هاي مانتا يعني بارك الله لبوفين يتوقع مسارد الله شقيان وحجوجا دياره وحجوجا شقالة من بحية وكلا بحية قبل الله حتى نقيبتكم غنتاي waxaa rabaa dadweynuhu inay la shaqeeyaan tiimankaas farq kaliya wal ma dhaqdo isku duubni baa wax lagu yahay marka ka wasaarad ahaan iyo ka shacab ahaan iyo ka dawlad ahaan waxaan rabnaa ay inaan meel uga soo wada jeesto